تعالوا وجودين هول مرتكو جيس كان كبلابيا وفيشكي عنك هويناي وسوسكي مدي فنانكي قال عبد البادي إبراهيم مدح فنانينتا صوماليات قارة يوروب محمد دير هي قدوميها سبورتيغا ودنك هولن آذن عبد الله هارون إن كان مركز توحد جعلها مقعشن لماسترو المقال كان مقال متقان عن وهذا إنه أرمي ودن بحالة أي شيء محكمة دي أي سي جي ماشي مرة يسحوده وشيء ذا فنان جيس كان كيف الله وحكم سويسرلاند وحكومي مدارين تبدأ وإسحاقان وصبحي عبد البادي إبراهيم بعد كبرتين يسوي الدنيا عاوة سجن وحكومي سوقيا هي مقالات هيك متقانا ودنك النذرلاند محمد ديق إلبرن سيدو كلوا متقانا قدوميها جودة متقانا فنانين الصوماليات أنت بدل اسكو حراء قام قابية برنامج ده مركب روحان جعلها هاي أنت نوشة أنا بلابن برنامج كان نوشة الجراية أنت أركيس المقالكا waxaan ku bilaabayaa marka hore gudoomiyaha isboortiga wadanka Holland oo ku sugan magaalada Hague aadan Cabdullaahi Haruun aadan adigoo martii soo dhaweynayo hal ilo maxallada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkaan ka salaamayaa walaalahey Cabdi Baadil Ahmed Deqilbir Siidaan Caseer oo Ingiriista gudoomiye wariinaay musikista أنا أتمنى السلامة وحكوا لها كان السلامة أمد الصوماليات ألف كان داوني سلامته ما شاء الله وحدك السلامة يا سلامة الإسلام كبر الله في التبك وراكه وحدك الله هاي الصومالية هم رات بدك على أرنتي بدأ يا هل كان مفروض نعاو سيارة بشر لوبا السنة وكي يعني دبر لونية بقين موجس بقين كموجسي أنا جوا بس بس كنت كان هرب waxaan diyaar u ahay habeenkii maalin aan u soo taaganahay aniga walaalahay inaan meenihi wax walba oo karaankeena aan ka geysano oo aan difaacno wadankeena iyo badana Soomaaliyeed ma sha Allah waxa Ilaahay mahadiisa caawa inaan halkan ku kulunay Cabdi Baadil oo noogu yimid jamalka iyo warinayo oo Switzerland noogu yimid iyo walaalkay gudoomiyaha Deqir oo asigana noogu martaqaal gurigiisa caawa halkan waxaan filayaa guul baa jirto inta badan Soomaalida way la socdeen xaaladda badda mar haddii Kenya codsatay in dib loo dhigo Soomaalida ay diyaarsiin taas micnaheedu waxa waa guushi oo soo dhawaatay anaga caawa hadana reer horan gaaraan dadka danaha ku nool waxaan sii dabaaldegayna guushaas haddii la yiraahdo insha Allah ama bil ama laba bil wax naga dhiibayso kulli meesha ay ka taagan tahay dacwadda badda ay wali cadeynaysaa Kenya inay guulaysanaan ku jibnaa tahay inta ilbar gudbin waxaan jecelahay fanaaniintan halaas noogu furaan axyaa wadani عبد البادل أنت نقولين بنك هسها قد بعسن برنامج كويل وينور بلو إن سومالية برنامج جدا كرتود شركين نواصع ذا
barnaamijkan barnaamij qiimo badan waa hala sheergareeyo oo hala gaarsiiyo soomaalida kale waxaa waaye haddii ay mataqaanaa arrintan mar haddaan heeg caawa aan mataqaanaa live ka soo galnay micnaheeda waxaa waaye mataqaanaa howl culus baa jirto marka hawshu meel fiican bay maraysaa waxaan u mahadcelinayaa cabdicasiis maxamuud kulmiye saaxiibkeen oo barnaamijkan qayb ka ah inuu mataqaanaa caawa noo hirgalo cabdi baadil waxaad ka timi waddanka jarmalka waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan adiga kugu bilaabo safarkaagii muxuu ku saabsanaa heeg safarkaygu wuxuu ku saabsanaa badbaadinta badda iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed iyo isku xirnaanta ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku saabsan yahay baraarujinta in dadka la baraarujiyo oo lagu baraarujiyo inay baddooda soo ceshtaan barnaamijkii waa ku guuleysanay anigu dagaalkii wuxuu ahaa kabanka ما شاء الله ninkanna waxaan u maleynayaa isaguna waxaa waa mikrofoonka waa codka ay aad cabdullaahi hore adiguna aniga sportska ay walaalkeen uninaaye isna organka qof walba oo mataqaan Soomaaliyeed Cabdi Baadil wuxuu leeyahay qof walba wixii u dhow waxaan filayaa Suleeqa iyo dadka kale u jeedaan Cabdicasiis iyagana Cabdicasiis mikrofoonkiisa wataa sultaankana waa wada dhaqameed wuxuu wataa suldaanimadiisa Soomaalida waxa laga codsanaa ayagana sheerta inay ku dagaaltagaan sheertaas waa ina barnaamijkan noo sheerganaysiin ilaahay tuso waxaan ku sugannahay magaalada Den Haag oo la filayay isniinta soo socota inay ka furmato dacwadii badda Soomaaliya Kenya u dhaxaysay waxaa soo hayatay guul hordhaca oo cabsi badan ay ka muujisay Kenya in meeshaas ay guul mataqaana ka soo hoyi doonin marka anaga caaw waxaan u dabaaldegaynaa in barnaamijkaas aan imaanay isugu imaanay waddanka Netherlands gaar ahaan magaalada Den Haag inuu guul ku dhamaan doono sidoo kale habeen dambe waxaa jira kulan asigana jaalida isugu imaan doonto Den Haag ka dhici doono Cabdi Baadil Maxamed Deeq Ilbir oo caawa aan marti u nahay gudoomiyaha fanaaniinta Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub iyo saaxiibkay waniinaaye gudoomiyaha isboortiga waxay leeyihiin caawa waxaan halkan ku haynaa heesa dabacsan oo aan ugu talagalnay inaan mataqaanaa bulshada Soomaaliyeed ee aan mataqaanaa kula wadaagno marka waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad nin saaxiibkay wuxuu dhigi jirniyo hala sheergareeyo caawa sheertaas muhiim waaye waa inay dareemaan mataqaanaa Kenyaatiga in mataqaanaa meel kastoo Soomaalida ku nooshahay in la isugu imaan doono Cabdi Baadil baan mar kale ku noqonayaa inaan wax ka weydiiyo arrinta badda asigu muxuu ku talagalay qaas ahaan arrinta badda waxaan ugu talagalay heeskii aan ku dagaalami lahaa waa kan ila dhegeysta horta waa dagaalamayaa kabanka ay dambe aye dagaalkaaga ma feer baan basoo bis iyo fanaanka loo istaago ala sheegareeyo ala dhiirigeliyo shaqadiisa wuxuu ku soo tagay inuu ka qayb qaato badbaadinta badda axyaa wadani Takada barkeediyo oo
ما شاء الله ما شاء الله waxaan u leenayaa dhowrka kun ay ugu jiro asxaabtayda inta badan barnaamijka lama sheergareynayo waxa waaye inta wanaag leh Soomaaliyeed ay ku dhameeyeen Soomaalinimada barnaamijka ha sheergareeyaan si Soomaalida kale ay u gaarto arrintan waxaan wadaynaa arrinta badda fanaaniintan waxaan caaw live ku soo gelinaa waxa ay tahay waxay ka soo tageen shaqooyinkoodii waxay ka soo tageen howlahoodii halkan waxay ugu sugan yihiin inay mataqaanaa banaanbax dhici lahaa maalinta Isniinta in mataqaanaa qayb ka ahaadaan waxaan jeclahay markaan inta cad baad u gudbin maxamed deeq u gudbo maxamed deeq adiga maxaa la saxay caawa ka soo qayb galkan isku imaana magaalada Den Haag oo deegaankan deganaha ah ayna ka dhacayso 9 bisha maxkamadda badda Soomaaliya iyo Kenya hadda markood uu guul noo soo hoyatay Kenyaatiga dadkii abukaatayaashu ahaa 9 nin oo ka mid ah iska casilaan abiil ka qaataan oo guul noo soo hoyatay waxaa kaloo farxad noo ah marti inuu noo ahaado fanaankeena weyn Alejandro Cabdibaadir oo mar walba garab taagan ummadda Soomaaliyeed baraarujinta Soomaaliya hadalkan kusoo gabagabaynayaa badbaadiya baddeena badbaadiya dhulkeena ما شاء الله waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb galno 9 bisha maxkamadda عباس نور شيخ وسلام ولالكي برنامج كلا شير قريو حاواي دور كل واحد وجود متقانا عن برنامجنا على سعون أنا متى بالله يفصل مقرأ حاوا مهم الله شير قريو كال واركا سهام واركا سعيد واركا مركانو حان جعلها هاي نكاسي متقانا ونينا موسيشن عنك قدوم يدم على عقد رسول taaganay ninka baqay cabsidiisa oo gaar ayaa laga tumaa ay maxal organ muxuu leeyahay marka organ intii karaankiisa wada dagaalamaya waxba dhooramayna way alla raaxo soo daade ما الله كيانا يقب كياتك مال مسار دونا اوكي عباس مر لباد مسعود سلام يا ارنك كودو له سومالي اسكو راعي سومالي محمدي برنامج كان هلا شرقريو فنانك عاو هيسا كبنا oo guusha hordhaca ku saabsan boolkan mataqaana ka soo jeedoona Cabdi Baadir Macallada waxaan leeyahay waxaan u dhexgelinayaa hees qiira ah oo la yiraahdo qiroonaya heeskaasi waxa alifay Ahmed Saciid Saabir oo jooga Soomaaliya oo kamid ah ciidanka Soomaaliyeed fanaaniinta la dhiirigeliyo barnaamijka la shaqeeyo mataqaana inta samaha jacaylka Soomaalida jecel u sheegayaan inta shaqeeyso marka waxaan leenahay heestan waxaa loogu talagalay halyeeyadii Soomaaliya dadkii qaranka u halgamay iyo ciidan ayaa waxay leeyihiin annagu maxaan u halgamnay Nasr Abdi sababta u halgamnay maxay tahay sababta aan u dagaalanay oo aan dhulka u xoreynay oo aan nafteena u hornay maxay Soomaali inay ku raaxaystaan dhulka
laakiin inay ku dagaalamaan umaynan dhiman marka waxay ka soo heesayaan qabuurihii ayay ka soo heesayaan marka heestan dadka caqliga leh ee wax fahmaya ee garaadka leh ila dhageysta warbixinna ka soo saara fanaanka wuxuu idin leeyahay hees baan sameeyay qiiro inta Soomaalida ku dambeysay ila dhageysato wuxuu leeyahay waa garaacayaa kaman ka oysi doonaa waa ka dhageysta barnaamijka hala shaqeeyo fanaaniinta hala dareensiiyo qiimaha ay leeyihiin safar waxay u soo galeen waxay live caaw soo galeen madaxiina ودني وحان أحي وشوحسن الكيسيقي قيوم قسارو جوكتي هاي كوي قرنكو هالقمي ديقو ذوقو بيعانكا وقدمي نفتودي قبورهي كأويا أيان لقيرون يا كوي قرنكو هالقمي أحيا ودني ديقو ذوقو بيعانكا وقدمي نفتودي قبورهي كأويا أيان لقيرون يا أحيا ودني أحيا ودني أديرو أديقا قلوبتا قدي اللو قرن يم من دمو أديرو أديقا قلوبتا قدي
dhiigooda u qubay calanka u qadimay naftoodii qabuurahay ka ooyayaan ayaan la qiiroonayaa kuwii qarankoo halgamay dhiigooda u qubay calanka u qadimay naftoodii qabuurahay ka ooyayaan ayaan la qiiroonayaa ayaan la qiiroonayaa axyaa wadani waxaan filayaa inta ay ku dambeyso soomaalinimada in fanaanka heesta uu qaadayay ee murugaladeed ee qiirada in badan oo kamid a inta daawanaysa barnaamijkan live-ka ay aada u fahmeen dadka qaarna waxaan filayaa muusigo keliya u tahay kamalan garaacayo laakiin fanaanka wejigiisa waxaa ka muuqata qiiro sababta cabdi baadil keentay wadanka holland u istaagay badda mataqaanaa maxay tahay sababta dadka daawashayaasheeda caawa halkan daawanaya barnaamijkan ay u sheergelay laayihiinna maxay tahay cabdi baadil waa muwaadin soomaaliyeed oo jecel baddiisa iyo dadkiisa barnaamijka hala sheergareeyo oo hala gaarsiiyo inta kale heese badan oo kabana waa dhiman waxaan jeclaan lahaa cabdi baadil mar la kusoo laabto cabdi baadilow su-aasha koowaad aan ku weydiin doonaa dowladda kenya waxay codsatay in mataqaanaa dacwada badda midowda africa loo wareejiyo taasoo dowladda soomaaliya ka diiday mar labaad waxay codsatay haddana in dacwada dib loo dhigo oo haddana laga diiday ugu dambeyn waxaa loo guuleystay in dib loogu dhigo 2 bilood adigu arrintan badda laisku haystay soomaaliya ay leedahay see warta adiga anigu waxaan haystaa kulley waa guulaysanay soomaaliya waxay soo gaartay marba heer laga soo bilaabo cabdiqaasim ilaa iyo dowladda hadda socota marka waa guulaysanaynay qof soomaali ahna inuu ogolaanayo baddaas in la qaato ma jiro dhul soomaaliyeed inuu qof kala qaatana qof soomaali ogolaanayo ma jirto marka waxaan dareemayaa inaan guul gaaray inaan isku xiran nahay ayaan dareemayaa laakiin soomaalida waxaan uga degayaa waan uga degayaa in aan la kala qaybin inay tahay dadkuna isku afka isku diina isku dhaqan ah isku wadan marka sidaa darteed soomaalidu waxaan kaga degayaa inaan la kala qaybin oo ay isku xirnaadaan weligood adoo maasan tahay waxaan jeclaanaa marka habeen dambe xaflad baa dhacaysa habeen dambe dhiganayna heesaha qayb kamida barnaamijka hadda waa hordhac dadka waxaan u sheegaynaa in ay berri nagala soo in farxad isu bedelay in aynu si wada jira halkan ugu wada caweyno adoo maasan tahay markaan waxaan jeclaan marnaa ilbi kusoo dhawaa isagana maxamed deeq adiguna maxaa leedahay arrintan dib loo dhigay fanaaniintii oo mataqaanaa soo xaadiray aqoon-yahanadii oo yimiday barnaamij lagu baaqay maanta sidii dibadda la baajiyay maxaa warta adiga arrinta waxaan u arkaa inaan guul gaarnay Soomaaliyeed arrinta waxay ila muuqataa inaan guul gaarnay 9 bisha Britain waxaan sameynaynaa xaflad la iskugu imaanayo oo isdiyaarin sida aan ka qaybgelin lahayn danhaaq kulligeen uga soo qaybgelin lahayn isku diyaarin lahayn farxad iyo reereen fanaaniin badan waa noo soo socdaan waana joogaan aada ugu faraxsanahay kiyaatiga maadaama aan ka guulaysanay alxamdulilah marka soomaaliya waxaan ilaa gacmaha la isqabsado dal ummada islale waxaan tihiin ummad isku af ah isku dhaqan ah isku diin ah isku dhiig ah dhulkeena iyo baddeena iyo meel walba soomaalinimada qoysa loo wada istaago waxaa leedahay magaalada danhaaq cidlo maaha waa lagu sugan yahay danhaaq cidlo ma aha way soo socdaan kumanaan soomaaliya oo banaanbaxa la baajiyey soo socoto hadda waxaan u imaaday aweys oo ah dhalinyarada ka tirsan magaalada ahna fanaaniinta cusub oo soo baxaysa marka waa mahadsantihiin aweys soo dhawow alfanaani intaan cabdi baada kabigiisa tegin waxaan jeclaan lahaa in aweys kusoo dhaweeyo aweys soo dhawow aweys adigana maxaa leedahay علي وادو هاي ولكن تيدا كلا وحان شيغا مغالدان هدي aan ka taabto wax yar Soomaali badan aan joogto soo walaalkeen Maxamed noo sheegay wana taagan wax walba inay maarkino dalkii dadkooda diintooda u horaan fahmin arrinta badan maarkino maadaama ay hadda walaalkii wax ka taabtay anigana aan laba kelmad ku darsadone saa u sheegay kiyaatiga aan ku guulaysan mar walba inaan Soomaali weyn isku duulaan aan jeclaan faat ما شاء الله
هذا ما صنت هاي وحن لنا هاي دفاع بدأ حتى هو تقالمينا اسكنا دافع كلا طول وحبا دافع منه كل كاس عيدنا ما قاعد كرتو عبد البادل شكو هيدي أيه نيكن عاو فرحت بوليسيا إيه نيكن عاو فرحت بوليسيا أيه ويرا أصلا كنت تلقي أيه وليسيا محل يسمع أيه فرحت بوليسيا أو محل دكانياتي وكبر إني ما فهمتي أيه مركا هسكي وثنوق هذا يا عشدوا إلهي محمد بقاوي عاوة باشال وقول هردعة محمد ديقة كسود وين قدوم بيكسود دو وريا برامج كلا شكل سومالي وحاوة يتقاد قواب بالله بي الله شكل برامج مرسل فالة دقن أنت مكو سلام يا صديقة وحاوة الدنيا ذاك عينا صديقة وكا أحيا ودري قولي قبل عيني من هولالي وعشرة علي نبضي عيني من هولالي وهو وصعد وسلام يا صاحبي يلا ما يسعى الشغيل عاونا كمان مهر عين كان فوقي يلا ما يسعى الشغيل عاونا كمان مهر عين كان فوقي أما لك كثور نسيق ماري عشان براي سلاقة أنا عرفتك كوبرا نسيق ماري عشان براي بوس عاتو سلام سلام بيج بوس ملغوش تاني سعد ولي وكا لا يا ودري عبدت إلهي عرفه نجوتي هذا المكان عبدت إلهي
قرن حذيفي أحيا ودري أنا أعرف كبولا الناس يجمعين عشان أحيا ودري محمد ديغو عاوة فرحة درسيد كتوري ما تدوي هذا هو عبد البادي إبراهيم أحيا ودري فرحة وضعها عاوة الله يستاقو ثلاثة الليمان أحيا ودري أحيا ودري يا ربي الله شارك رأي برنامجك ومالاي وهبدأ جوش صوماليا أحيا ودري بوس عاد صعب كوش تقدر أدنى صدف سلاقة يا ودري أحيا ودري وحا
ما شاء الله وحن فيليا إن عبد البادل كبوتين عبد البادل طلب بايبانه طلب عبد البادل هل كان طلب بايبانه وحي ليهين سهام هي السليقة هستي أحد حتى هل بيت نوقعه سيدوك واحد السلام عليكم لجل بوس عاطو سويدن أحياء ودني دقيست أنا قاعد والكان وهربع جوش بتقنا الصومالية بتقنا عند الجيران قاعد دونه بقدين تكية عبد البادل عاوح واللي هي سديدا سي حجر لك عاوج يفجو صباح عاوة وصل جذي بدن أيه بدن حلو بايا هستي حد بادو عطسي بايا مانيو كما كل سنة لكن الصومالي هم ولاتي ودنيت أنا اللي هستي إني آوي بايروس حدي والسوق يا وقال يا كانوا ودنيت هلا ما ودنيت بنادي بشر جالسين وحاسو قلي فنان قرن عمر شريف عمره كوش تاقي صاحب وحاول عاو انت سماها جعل متى انا هنا العيدو عمر شريف سودو عبسيدي كيا انغا هيغا كسوغنahay maxkamadda hor taaganahay caaw maxkamadda waxa jirtaa 100 tilaabo seexamayno badanu iimaha ama noqo Soomaali ama noqo Kenyaati badeenu iimaha لكن معلنا هذا سبحان الله Soomaali hanolaato عدو جيدونا حدعو إلا ده هرت أيه صومالي hanolaato عدو جيدونا حدعو شرقري برنامجك صومالي hanolaato اللي من شرقريسين بوس عاطو شرقري برنامجك سلاق شرقري ليوان شرقري هسا جعلك بكون عسلسي هسا جعل واجران عاو وحبا يدي شيغنا دغيست annaga caaw waxaan dagaal ku jirnaa badbaadinta badda Soomaaliya 80 kan qafay inta ka badan daawanaysa barnaamijkan waxay qayb ka yihiin badbaadinta intana daawanayso barnaamijkan hashar garayso horta Mariam Saciid waxa waaye waa bilow ilaa dhamaad waa dhiirigelinaysa Suleeqa sidoo kale boos caato Siham dhamaantii aad oo maasantiin badda Soomaaliya ama aha madax Soomaaliyeed ama aha Kenyaati iib maaha hal ogaado يا ودني سيديا شاديكيو سيدا هيا كمترو سيديا شاديكيو علنك بالكو طريق ما سرد صومالي باناي تاريخ لسوغيو أقول ساكويو تاريخ لسوغيو أقول ساكويو يا ما سرد صومالي باناي الله توصار علنك الله توصارو سيديا شاديكيو سيدا هيا كمترو سيديا شاديكيو سيدا هيا كمترو سرعة ديدا كمترو صومالي باناي تاريخ لسوغيو أقول ساكويو تاريخ لسوغيو مريم سعيد ما ترد ناقل عبد الوجاز عبد البر وليسو كسيا يابو الله ساري كريعة انتو إذا الصعوديو سكون دفلا أوليل أريو سريو صومالي باناي كسيا يابو الله ساري كريعة انتو إذا الصعوديو سكون دفلا أوليل أريو سريو أحيا وطني صومالي باناي Somali
Somalia Anolato Adolvido Somalia Anolato Adolvido Somalia Anolato Adolvido وديب داق البر محمد داق وجود فنانك وحولها صوماليا هالنولاتو عدوغيد هالدعو maadaama adiga caawa aad qayb ka ahayd barnaamijka inuu hirgalo oo aan caawa live ugu jirno xaafadaada cabdi baadilow leh badda Soomaaliya iib maaha ama ha noqoto dawlad ama shakhsi cid iibsan karta ma dhul Soomaalido maxaa ku tarsan adiga badan iib maaha gorgorta ma gasho waxaana iskale ummadda Soomaaliyeed badan ummadda Soomaaliyeed iskale sidaan ka warhayno banaanbax baa la qabanqaabiyay oo qaybaad ka ahayd kumanaan Soomaaliya caawa dadku daawanaya maxaad leedahay waxaan leeyahay baddu ma qosayso shakhsi ma qosayso dawlad waxaa iskale shakhsi walba oo Soomaali ah war Soomaaliya inta moogtiin ilbir wuxuu wari badda Soomaaliya shakhsi ma lahan ummaduna ka dhaxaysa cidna ma geli karto cidna ma keeni karto waxaa iskale carruurteena waxaa iskale annaga waxaa iskale 10 generation waxaan dhali doono ma sha Allah marka maanta waxaa loo baahan yahay inaad u fikirtaan danta carruurtiina danta mustaqbalkiina maadaama carruurta aad dhali doontaan maadaama ku sugan tahay isniinta waxaa jira banaanbax baa jiray xoogan oo la baajiyay maadaama Kenya meesha ka baxday arrinta banaanbax la baajiyay aad baajiseen shacab intee la eg ayaad filanaysaa inay soo qayb galaan meeshaas in abwaaniin muusikistayaal madax ka socota safaaradaha Soomaaliyeed fanaaniin odayaal waxgarad carruur ma loo kala harin weligii markaad hoosay caawa haysta maxaa caaw qeydil farxad ما شاء الله محمد داقل بروحه كميديا هاي وحقرت كصومالية كنا ودك النذرلاند سيدوك العاو عن الجو قدومية سبورتي الصوماليات ودك هولند آذن عبد الله هارون هذا وحو كميديا هاي دتك بنام بحق مقابلي واشتاقي آذن أديكم محل هاي هل يلبا ما شاء الله والله مي وسيد محمد داقل بروحه وشاقي بنام بحق نقبل يعني ورنا هاي مرنوع فرحتنا هاي وكفر أحسن هاي وش عن قرن هردة إذا أيام مني دريمينا إن شاء الله دون ليدارو مركل لبات وحاوي وحالك نحسن هاي ما دام يورو ولا سكريمي سومالي إنجليز كدنمارك جرمال نرويج مركزتي مالين وصود يارين بنبح كيف قاتل هذه وحات هاي وحكرت الصوماليات أنت بالوحاة قبل سبلاش سبورتيكا أسبوع قدام بيجي نهبينا لما لسحنين بنبح بجري إلا وحاكل الهرو كنت كنا الصومالي قرب دبنا كيمدي بنبح باقي إمسا شعب أي سنة ويمال هاي والله يعني واحد سوق بكرامة هول كبير وحاكلنا إلا كنت كن وحنفلا يا مركا ما دام يوروب صار هول لون الديار وهاين وملك استيكي بعدين حافظي الصومالي إنه وبوحان أنا قلت كنا دم عاد فرق بدنا يا سود أنا ما سنتها وحنجعلها هاي عبد سلامته والله قاسي أنا عبد الله هارون وشخص تاين صومالي ودنك هولن أنت بسبورتيكا يستحقلك بروشدا وعورو قبت كوبكي شعاس برسلة كوبكي جنرال داود يكوب لوجو معدلي أو نورس بحكور لقبتي الله محرست قدومي جوا كبنادر إنجيريسو أنا ما ستاي دك قالوا حيلي عبد بادل الميكروفون كدي لو رجي هرت أنت لو رجي صومالي هرت وحان ربا أنا وما عليو مريم سعيد مركز لايف كان سوق لي إلا يهدا جوبابو يدير قلبي ودا ولا شيء وحنا ربنا نقول ما ستاي سيدو كلا بوس عاتو سليقو سهام نيك برنامج كعاهر قلي عبد العزيز محمد كلمية سلطانكا والسلفا للدقن سلامنا هلا سو الدنيا علنا أي دولنكي سيبا إسكالي دولنكي سيبا إسكالي إسكالي ما شاء الله الله واتو أنا فريسو أنا صاحبك كله ويلي كله سها والدنيا وحن جعلها علنك الصومالي اللي قد يقف فنانك لا شرقريو هستان وحال وليها دولنكي سيبا قبل ما قعدها مريم سعيد وحال إسكا الله وقت القلب دولنكي سيبا يا سليقة يا سهام
عاوة كعسين اوكي وحلينا امرك هدي ايام دبيلورين اود مرن قيدوي مركان ورك هيدي او ماي شاكرين برامجك إفكاوغ صباحي أديقون أفعبرا نعودي سعود قلي كي وأقريو أرليغيغو آوي بوليستا بتكسكا أردكا أول دعي عدوسي لدغي صوما أوغا صوما أوغا أحيا ودري فنان كنيسي الماغ صعدو صوما بيها كمباي صوما الله إنا تكريداي صوما نكتب اسكا أحيا ودري هستا waxaa loogu talagalay waxsee kugu samaata arligaygo ilmaka madidi karo aqoon yare bulshadana ku eego heestaa waxaa loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed wadaniinta cabdi baa ugu talagalay ha ugu horeyso Suleeqa Sihaam iyo walaashay waxaan jeclaa lahaa inaan si qaas ugu mahad celiyo لما مالي سعيد أدب ما سنتين سيد علي كحول نكا قيرد يا ود مكتر هاس وحنا قال الدونا دتك هيسا جعل أيام ركوا أسود جسنا قلت ودنين توير يدنا بزودنين نيو إلى الله بقول ودنين تدوحان وجودنا حتى هذا ودنين وحصل تورتان ده وحصل تورة وحول لي عبد بادل أنت برنامج كذا ولا شركة رئيس ودنين تساوي إنه على كالصومالي ولا صوت الدولة waxaa ogaatay Soomaaliyeed 5,000 oo qafood ama 10,000 oo qafood oo mataqaana barnaamij aan qiimo lahayn wada waxa dhaanto 200 oo qafood Soomaalnimo wado axyaa wadani maryan loofka iyo calanka intaba ma dhaafto Sihaam sidoo kale soo tuuraysa Suleeqana sidoo kale warmeenink marka waxaan leenahay ninkan wuxuu ku dhashay xaafadda waa bari ما شاء الله ilaa hadda sidoo soo galo oo shaqeeya ninka dhalinyarnimadiisii wuxuu jeclaa wuxuu kamid ahaa ubax kacanka waliba wuxuu jeclaa mataqaanaa heesaha wadaniinta ah laakiin caawa wuxuu yiri garabkaaga fariisanayaan maadaama aanu ay mataqaanaa ay Soomaalidii u duubteen ciidoodii calankoodii marka hees waxaan qaadayaa uu yiri rafiiqi warmadi muridee عاوة باشرو وشهر دعاء باشرو أحيا ودني بنكا أورك وحنا طبيو صعب كي ونينية وسيش العانا وليسو Somalia أنا راتو Somalia أنا راتو وري على كيف عرّيو عمايل بر تحيا ودري رحي سوايو مير مولو عمستياويا أبانتا مورتينا يا ليلى ميرا عباس نور شيد عم عرايق وليس واقعي أنت مورتينا
شغال خلاص ما شاء الله وحن جعلها عبد البادل وهلا ساجد طلع عود ساجرو لأنه يقولوا ساقلك كجرو منطقة لايفك وسلطانك وحول لي هيس اللي يقع السومو وسلطان عبد الرحمن سلطان هذا مكسر هناي إكستو وقتك كعريري هاي هيست هذا متحقرينا هدي وقت إنه سامحه سلطان عبد الرحمن برجم كأنت فربن سلطانكم ما هينو إلا أتبع شيء اسمه هينو عادي ما هالو سليقه وعاوى هيستا رفيقي هذا أول شيء سلطان عبد الرحمن عبد البادل أنت سلطان عدسيسة هيستي أحد يهديك وجود جلسه أما هيستي أمرا ميت كبنا أمرا عادي بشعلان عادي ما أمرا كله فوق تاس وليها دي معصي سهام يسوق واي هل بيدو بغات سليقة سهام بصعته أحدي سداد
يا مزرقة ولا يدمي أحدي سدان وبيجي عرقدتا كل تبصداي ويلو صدهي أحدي قابرتيو مشابين تري ونمانيا أحيا ودني عرقدتا كل تبصداي ويلو صدهي أحدي قابرتيو مشابين تري ونمانيا أحيا ودني tirado iman maayo ma aadee xaafadii holwadaa يغشد يغشد haddaad tiraahdo iman maayo ma aadee yaaqshi أحيا ودني indhaha habeenkii ilaalinaayo afkeega waayo waa inuu mar kale insha allah عبد البادل وحاقود من عدسي صاحبك هيستا وسحر الدونا انت الله تعاون غير قات هذا الوازتين هيستا عدسي سلطان عبد الرحمن انكو سحرينا بلجيك انت فيربن تاسو هيستي امرا برنامج هيستا انكو سحرينا الله باشالو كدبنا انكو سحرينا ان شاء الله وكاس
barnaamijkeena waa inoo gabagabo waa xiranaynaa hal hees oo wadaniya waxay hal hees oo wadaniya ku soo xirinaynaa inta heestaad ku soo xirin codsiga ugu dambeeyay ku siinaynaa maxaad ummadda Soomaaliyeed leedahay waxa laga codsanayaa hees wadaniya ama ha noqoto heesii Ibrahim Baadil ama ha noqoto heesaagii hore hal hees oo wadaniya inta heestaan u gudbin Cabdi Baadilow marka waxaan jecelahay ninka geeska joogo inaan mahad celiyo muusiga caanka ah Swiss ka yimiday waa fanaan culus waa musician wuxuu nooga yimid Swisska Cabdi Baadil wuxuu ka yimid Jarmalka waa kay gudoomiye awas dhamaantiin Elbir aad oo maasantiin Cabdi Baadil adaan waxaan ku siinaynaa maadaama caawana u dabaaldegna guushii hordhaceed maadaama Kenya codsatay in dib loo dhigo heegnaan ku suganahay dee wax la'aan noqomayno saana aan ku xusna caawana guusheena adigu maxaa leedahay baaqa awdada Soomaaliyeed maxay tahay waxaan u dirayaa Soomaalidu ilaa hadda wadad isku xiran halka ka wada guusha isku xirnaantiina waxaan kula dardaarmayaa in qabyaalada la baabi'iyo waxaan kula dardaarmayaa in istixgelin la sameeyo waxaan kula dardaarmayaa ubadka soo koraya in laga fikiro oo aan loo fikirin shakhsiyad gaar ah ubadka soo koraya in ay nagu daydaan wanaagga nooga daydaan oo ayna qabyaalad nooga dayanin in aan dhaxal uga tagno dalka ayaga leh ayaan macnihii ku waaninayaa waxaan ku waaninayaa in Soomaaliya oo dhan ay mid noqoto oo aan nala kala qaybin ayaan ku waaninayaa waxaan u leeyahay marka dhigeenu ha ahaado yaa wadani heesta wadaniga tala warfanaysa marka waxaan xusayaa Salaad Derbi heesta ayaan ku soconnaa barnaamijkeena asxaabay la socda يا بس نبلا أكو حجنا نبلا هاي هذا عباد إن كستو المدالة هاي مركا ميلتريجا عيدا كسوماليات أبال بينهم مدينين إلا تحقق اليوم قفل بسوماليات مركو عيدا برنامج كتاجر أركو إنه تحققين جار أسيو إنه قدرين بركة الكاوي تاجين إنه هذا بدبنا عبد بادلو ميلتريجا قربه وطها أدنى محاوطة كذا كنت دجالمي دجالكو واساس أديك ما كنت دجالمي سا أنا waxaan ku dagaalamaya kaamirada iyo codkayga صحفي mana istaagi ma doono badu iimaha marka heesta wadaniga ku dagaalamay wax walba asxaabay heesta wadaniga gabagabaan taaganahay hal la sheer gareeyo sidoo kale toodne heesta nagu raaxaysta intii barnaamijka live dib soo gashay heestan bal ku raaxaysta دقيقة ما ينطق ما سنتين هذا ما سنتين وطودة حيا ودري علنك ما أركو الله يديك لي فنانك مريم سعيد قولسو بعضهم ودري
gobonimada Soomaaliyeed ee galbeed Sirca wajasho kuga ayaa wadada heestii way Yadka wadwada Yadka mayela Geerida Madiina ayaa wadada baadil alla ku naxariiso Yadka wadwada Yadka mayela Geerida Madiina Tadkar shaleedahay gumay siga baguyo waxaan baa garaacdo dadka garaarato od garaabsanaysid garaac تدي حماتي جايب ضوت عن قمايل مايا كما قربي لكل ليليا كل أخلي كلا كوليا كاد كشبوي وقتي كويكا كعسل وكان قطبي كل بحيا وشعيا قاري صومالي صومالي وشعيا قاري بعد صومالي 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 وشعيا قاري صومالي صومالي وشعيا قاري أحيا ودني أغيارتا شرفت له إنتاس أيا كوسو جبجبينا برنامجكي هاد بعدكم عندنا دمانتين وما سنتين وأنا سلامتين